intaasuu nabigu yihi sala allahu alayh ali wasalam dikrigaasuu nabigu mar kala tilmaamay qaybo ka mida oo laba kelimadood buu ka soo qaatay oo yidhi khafiifataani cala allisaan haqiilataani fi lmiisaan xabiibataani ila araxmaan laba erayoo carabka aada ugu fudud miisaankana aada ugu culus allahna aada u jecel yahay maxay yihiin subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim maanta suuqaad dukaan fadhida ama makhaayad maqal baad fadhidaa intee in leeg baad qof la taagantood hadlaysaa in allaale intaad fadhida haddaa subxaana allahi wabixamdihi subxana allahi alcadiim dhahdo gaajoon maysid oo oomi maysid oo xiiqi maysid oo qof kalaa macmiiloo kuu yimid oo wax kaa gatay markaad dhammaysatee dib tan aad ugu soo noqotay kuu diidi mayso waad safri halkanaad ka lugayn meel xaafadda ka midaa tegi intaas waad lugaynaysaa wax ma qoraysid waxna ma akhriyaysid dikriga kuma mashquulsanayd waa isla haasaawaysaa mararka qaarkood dadka iyo geedaha dardariyo telefoon baad ku mashquulsantahay telefoonkaad ku mashquulsantahay jidkaadoo socda laakiin waxaad kari weyday subxaana allah subxaana allah subxana allah inaad tiraahdo gaari baad wadaa baa laga yaaba waa darawal halkan ilaa Mombasa gaarisu gaariga caydhinaya wax ma qori kara waxna ma akhriyi karo intaas mid uu heesaya mid maskaxdiisu laha saawaya waxaad ku mashquulsaneed markaad meel istaagto laa diin walaa duuyo waxaad meel saartay male faylanaad xidhay male shaqooyinaad dhammaysay male dikraad xasuusatayna male haddiiba kuma hurudido maadan seexan oo darawal baad soo gaari baad cayrinaysaa bal haddaadan qur-aan xataa xifdisanayn inaad subxaana allahi walxamdulilah iyo salliga nabiga iyo istikfaar iska akhrisato wax kuu diiday ma jiree waadan xasuusan intaad yar xasuusatona ninkii shaydaan ahaabaa kugu soo dhacay waxoogay akhriso markaad dhahdo telefoonka fiiri buu ku leehay war waxaan jinniya jeebka lagu wato ee qur-aan laga akhrisan waayey ee salaad laga tukan la'yahay soo musiibo ma ah